maamulka gobolka Banaadir ayaa si kulul uga hadlay dagaaladii shalay galab soo bilowday ilaa waqtigan ka socda gudaha caasimadda magaalada Muqdisho kuwaas oo u dhaxeeya ciidamada ammaanka iyo sidoo kale kuwa daacad u ah mucaaradka. Waxa magaalada Muqdisho shalay galab ka soo bilowday ilaa waqtiga la joogo ka socda dagaalo sidoo kalena waxaana haatan aaga Mirnaayo uu degan yahay madaxweynihii toddobaad ee Soomaaliya Sheekh Shariif Axmed halkaas ka socda dagaal aad u culus oo u dhaxeeya ciidamada ammaanka iyo sidoo kale ciidan daacad u ah madaxweyne hore Sheekh Shariif Axmed. gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho Dr. Xasan Maxamed Xuseen Mungab ayaa qoraal ku qoray barihiisa bulshada si kulul uga hadlay dagaal ka dhaca magaalada Muqdisho sidoo kalena bogaadiyay ciidamada ammaanka. gudoomiyaha Mungab qoraalka uu ku qoray barihiisa bulshada ayuu waxa uu ku bilaabay waxaan bogaadinayaa ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amniga ee sida hufan geesinimada iyo mas'uuliyadda leh uga shaqeynaya sugidda amniga ilaalinta shacabka iyo adkeynta haybada dowladnimada. dadaalada ay saacadii la soo dhaafay ka wadeen magaala madaxda Soomaaliya waxay ka turjumayaan waajibka qaran ee ka saaran difaaca xasiloonida sharciga iyo kala dambeynta dalka. sidoo kale waxa shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ugu mahad celinaya dulqaadka wacyiga iyo wada shaqeynta ay muujiyeen xilligan muhiimka ah taasoo cadeysay in dowladnimada Soomaaliyeed ay ku dhisan tahay rabitaankiina sharciga iyo hay'ado qaran oo shaqeeya. qoraalkiisa ayuu wuxuu ku soo gabeeyay gudoomiyaha Mungab sidaas awgeed lama aqbali karo isku day kasta oo lagu wiiqayo amniga lagu carqaleynayo kala dambeynta ama lagu jiljilayo jiritaanka dowladnimada. qoraalkan ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Mungab ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli saacadii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ay ahayd mid qasan sidoo kalena ay ka dhaceen dagaalo aad u culus kuwaas oo u dhaxeeya ciidan daacad u ah mucaaradka iyo sidoo kale ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay si weyn u guuleysay saacadii la soo dhaafay in ay la wareegto ama gudaha u gasho halkii uu ka dagaalamayay ciidamada daacad u ah ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Kheyre taasoo saacadii la soo dhaafay halkaas ay ka dhaceen kulamo dhexdhexaadin ah. sidoo kale waxaa soo gaaray halkaasi agaasimaha NISA Mahad Maxamed Salaad oo halkaasi ka galabiyay Xasan Cali Kheyre sidoo kalena u sii qaaday halka uu ka degan yahay xindaamka xalne. haatan waxaa dagaal culus oo ka socda aaga Mirnaayo ee degmada Cabdicaziza halkaas oo ay isku farasaarayaan sidoo kalena hubka nicisku la isku adeegsanayo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa daacad u ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya xilligii ku meel gaarka ee Sheekh Shariif Axmed. xaaladda saacadii la soo dhaafay Soomaaliya ayaa waxa ay u muuqataa inay sidii hore ka soo raanayso kadib dagaal culus oo xalay ilaa shalay galab ka socday magaalada caasimadda Muqdisho. maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay si kulul uga hadleen arrintan iyagoo sheegay in aysan marnaba gortan ka galin amniga caasimadda cid kasta oo ka hor imaadana ay gacan ay ku qaban doonaan.